السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. Hadaba waa galabnimo aan idinku soo gudbinayno waxa kamid noqon doona Netanyahu oo ka walwalsan mudaharaadyada oo si weyn ugu sii fidaya meelo kala duwan oo ka tirsan gudaha Israa'iil iyagoo dalbanaya in xukuumaddu ay joojiso dagaalka Gaza isla markaana maxaabiista la soo daayo. Haddaba hadal uu jeediyay Netanyahu waxa uu kaga hadlay mudaharaadyada iyo sida uu isagu u arko iyadoo mudaharaadyadu ay xireen saacadihii la soo dhaafay wadooyinkii hayweeyada ee la isaga gudbaya gobolada. sidoo kale barnaamijkaanu idinkugu soo gudbin doonaa Israa'iil oo duqeymo culus ka bilowday xaafado kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza iyadoo la sheegay duqeymahani inay gogol xaar u yihiin ciidamada dhulka oo ay doonayso inay maalmaha soo socda geliso Gaza si loo meel mariyo go'aankii xukuumadda Israa'iil ee qabsashada magaalada Gaza. wararkii ugu dambeeyay sheekada ayana waan idin soo gudbin doonaa. Iiraan oo markii ugu horeysay sheegtay inay kalsooni ku qabto sawaariiqdeeda ama gantaalaheeda kuwaasoo ay sheegtay inay hadda gaari karaan Mareykanka iyo waliba Yurub. haddaba xaaladaasoo iyana way soo korortay adduunyada oo dhan ayaa hadda isha ku haysa Iiraan. haddaba tafaasiil ku saabsan arrimaha iyana waan idin soo gudbin doonaa. qaybaha dambana waxaan idinkugu hayaa Brito oo la filayo Zelensky inuu aado Washington ayaa la sheegay madaxda Yurub iyana inay sheegeen inay madaxweynaha Ukraine horay u sii raaci doonaan. haddaba sheekada ka dhici doonta Washington iyo waxa laga hadlayo ayaynu iyana barnaamijka ku faahfaahinaynaa. qodobada ayaynu galabta barnaamijkeena ku soo gudbinaynaa inta aan ku jirno wixii wararayso. kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo axada. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa qodobo kala duwan waxaana ku bilaabaynaa Netanyahu oo muujiyay sida uu uga xun yahay mudaharaadyada sii xoogaysanaya ee maanta ka jira meelo kala duwan oo gudaha Israa'iil ka tirsan. waataan saakii barnaamijkeygii subaxnimo ku soo qaatay 350 goobood in mudaharaadyadu ay ka dhacayaan weerar lagu qaaday guriyihii wasiirada oo la gubayo wadooyinkii meel walba mudaharaadayaashu ay xireen. haddaba Netanyahu oo la hadlayay mudaharaadayaasha ayaa wuxuu yidhi sida warbaahintu ay sheegayso Israa'iil. Netanyahu wuxuu sheegay mudaharaadayaashu inay dalbanayaan dagaalka in la joojiyo marinka Gaza laakiin wuxuu sheegay taasi inay xoojinayso mowqifka xarakada Xamaas waxayna dib u dhigaysaa uu yidhi in maaragtay maxaabiista la soo xoreeyo. wuxuu leeyahay وهذلكي هداي مقتاي سموتريتش برنامجكيغي subaxnimo qodobadaas ayaa aad uga hadlay. Smotrich hadalkiisii ku hadlaya ninkan marka waxa leeyahay sidii shaba wuxuu qaanad ugu jiraa Smotrich iyo Ben Gvir. marka wixii Smotrich uu ku hadlay oo isaguna hadda ku hadlay wuxuu leeyahay nimankan mudaharaadayaasha waxay la shaqeynayaan macnaha maaragtay Xamaas waxay niyadda u dhisayaan macnaha Xamaas inay hawsha ay wado ay sii wado waxay dib u dhigaysaa maxaabiistii aan soo furan lahayn waa ka uu ku qeylinaya. laakiin waxa la sheegayaa mudaharaadyadu inay maanta ka duwan yihiin kuwii hore wadooyinkii highwayga ahaa meel kasta iyagu dadku ku lugaynayaan ayaa warbaahintu ay soo tabinaysay. bal haddaan aragno mid ka mid ah fiidiyoyada ay dadku ka soo tabanayeen mudaharaadyada oo goordhow ku faafay wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolada. watahay marka waan arki doonaa kulay wixii ka soo kordha mudaharaadayaashaas qaylinaya waxa ay xukuumaddu ka sameynayso. inkastoo mudaharaadku dagaalka la joojiyo ay dadku ku hayaan oo ay isu soo baxeen oo qaylinayaan waxa la yaab leh Netanyahu wuxuu isaguna amar ku bixiyay in duqeymihii Gaza la xoojiyo si loogu diyaar garoobo ciidamada dhulka ee qabsan lahaa Gaza inay maalmaha soo socda iyaguna galaan. marka taa waxa lagu leeyahay
wax uu dhageysanayo dadkan mudaharaadaya waxay rabaan ha sameeyaan wadaday rabaan ha ku lugeen iyaga daalayo taageen haddaba markaan inta soo jireeda la yiraahdo sharqul awsad ayaa iyaduna waxay qoraysaa Israa'iil waxay xoojisay duqeymihii ay ku haysay Gaza iyadoo u gogol xaaraysa howlgallo military oo ballaaran oo ay doonayso inay ka fuliso Gaza marka waxa leeyahay duqeymay ku bilaabeen nookan sidoodaba waxay ictimaadaan oo ay isku haleeyaan duqeymahan cirka waxay leeyihiin meelaha waa duqeynayna dadka ka baxeen muqaawamada ku hartay waa duqeynayna kadib ayaan ciidankeena soo gelinayna marka hadda waxay bilaabeen duqeymihii inay duqeeyaan magaalada Gaza oo waliba ay meelaha ay ku tuhumayaan in ciidankoodu uu gali doono oo maxaabiista looga hayo ay hadda duqeynayaan marka waa arki doonaa kollay duqeymahaas iyo wixii ka soo baxa iyo waqtiga ay ciidamada dhulka ah gali doonaan muqaawamadu iyaguna waxay leeyihiin duqeyn anagu waxba kama tari karno oo gantaalo aan diyaaradaha isaga dhicinno ma haysano laakiin maalinkay dhulka noogu yimaadaan wacdaraa dhici doona marka waa la isku hanjabayaa marka halkaas waa arki doonaa wixii natiijaha oo ka soo baxa qodobka kale ee barnaamijyada galabta soo kordhay waxaa ka mid ah Iiraan oo markii ugu horeysay sheegtay gantaalaheedu inay soo salaami karaan oo ay tagi karaan nagtana ka saari karaan Mareykanka gudihiisa iyo Yurub ciyaaryaana loo maleynay annaga waxaynu ciyaar ma aha Mareykanka magaalooyin ka mid ah ayaanu nagta ka saari karnaa in Yurub markii aan la dhayarsanin yaana la ku soo degdegin marka nimanka kan warkoodu marka war caadi ma awal baashoodu Israa'iil iyo meelahan iyo ay ku filan tahay Carabahana la lahaa hadda waxay taagan yihiin ilaa Mareykan iyo Yurub nagta ka saarayna marka hadalkaas waxa leeyahay waa hadal weyn hadiiba uu dhab yahay khatar soo food saartay waa Mareykanka iyo Yurub alle marka arrintaas marka waa ka hadli doonaa wixii khibradu ka yiraahdeen laakiin newska soo dhacay daan idin la wadaago telefishinka Al-Arabiya wuxuu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Iiraan oo ayaa sheegay in ay gaari karaan Ameerika iyo Yurub sawaariiqdooda marka la rido inay arika maartay ay sameyn karaan haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay xubin ka tirsan golaha amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee baarlamaanka Iiraan General hore oo yiraahdo Amir Hayat Muqaddam ayaa sheegay in Tehran ay awoodi karto inay bartilmaameedsato oo ay gaarto Mareykanka sawaariiqdeeda waliba waxaa la sheegay dhinaca badda inay ka weerari karto waxaana ay sheegeen sawaariiqda Iiraan inay tagi karaan Washington iyo New York labadaba inay gaari karaan oo marka Iiraan hadda ay awood u leedahay in ay rido gantaalo weerari kara aqalka cad ee waddanka Mareykanka Yurub iska dhaaf waa laga kormaray Yurub xaggaas ka sii jirtaa Yurub iyo Mareykan Washington tagaynaa tagin waxa soo salaameynaa meesha uu joogo Trump nimankii Iiraaniyiinta niman caadi ma waxay markayana la ku soo degdegay marka dad fara badan marka aridka waxay ka bixiyeen falcelin qaar waxay leeyihiin waa iska waabis handadaad yaa laga badinin markay qoladan hanjabto adiguna hanjabaad ka culus dir war ku dami waa hawshaas dad qaba dadna waxay leeyihiin nimanka kanu maalmahan waxay aad ugu milmeen Chinese laga yaabay inay farsamo gantaalahoodii halista 1,000 kilomitir 2,000 iyo xogaa inay gaarsiiyeen ama ilaa 3,000 kilomitir ninkii 1,000 kilomitir gantaal gaaraya samaysay waxay leeyihiin 2,000 inay 3,000 kilomitirna inuu sameeyo wax weyn ma maxaa farsamadii iyo aqligii shalay uu ku sameeyay 1,000 kilomitir gantaal gaaray haddana 2,000 waa sameyn karaa iyo 3,000 marka sheekadaasu iyaduna halkaas ay maraysaa marka wararkaasu waxa aan ku waaweynaa qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa sheeko ku saabsan ninkii Zelensky ahaa ayaa berito waxa laga rabaa Washington madaxdii Yurubna waxay yiraahdeen waa barnaamijkii galabnimo waxaanu ku soo qaadanaynaa arinta Ukraine iyo Ruushka haddaba sidaa la socotaan dhawaan gobolka Alaska ee Mareykanka waxa ku kulmay Trump iyo Putin Yurub marka waxay aaminsan yihiin madaxdeeda ninka Trump la leeyahay inuu ninkan gaaban ee maartay Putin la leeyahay uu yahay nin aqli badan oo imtixaan badan marka inuu ninkii Trump inta meel ku xirtay uu ku shubay uu Trump hadda Yurub oo dhan iyo waxa kan warkooda aanu dhageysanayn
marka nimankan waxay leeyihiin annaguna wixii ninka uu ku shubay waa ka shubi karnaa annagana waa ku diri karnaa isaga ninkan nin habhablaa waa marba meeshii loo jeediyo iska aadaa nin gabgablaa meeshana laga soo galay aad xaggaan u aadaa halkaan u aadaa marka saas waa leeyahay isaga marka wuxuu yiri asaga Zelensky iyo Mao madaxdii Yurub marka waxay ku shireen baashi la iska arko waxay yiraahdeen ninkan sidii kaligiisa kuma deyneen waa raacaynaa رئيسل وزراء تريانيغا هدين مارتي رئيسل وزراء جرمالكا فرنسيسكا iyo ingiriiska iyo waxay raadeen ninka hore u sii raacayna hatta ninka gaashaanbuurta NATO madaxda uu ah wixii oo dhan waa raacayna ninkan sheekada meesha ka socota sheeko sahlan ma Ukraine arrinteedu waa arrin culus Trumpna waxaan ka baqaynaa inuu dhanka Ruushka nooga safto marka sheekadaas Brito u tuuran ninka Trump aha wuxuu sugayay Zelensky hadda Yurub oo guuraysa ayaa u socota haddaba markaan tusoo jireed ilaa sharqul awsad waxay leedahay madaxda Yurub waxay raaci doonaan Zelensky ilaa Washington ay u raaci doonaan bari marka waa la ishayaa marka Washington markii la tago ayaan arkaynaa bal wixii ka soo baxay inkastoo maanta uu hadlay ninka leeyahay Trump warar laga soo qoray aan arkay oo lahaa natiijo wanaagsan la gaaray iyadoo Witkoffna uu lahaa madaxweynaha Ruushka tanaasulaad fara badan uu sameeyay marka waxa soo dhan waxa la ogaan doonaa Brito markii Washington la isugu tago nimankii European-ka hadiiba loo ogolaado inay galaan shirka iyo inuu Trump diidi doono hadduu rabo wax walba dhici kara waa arkaynaa marka fakari aragti waxa qabtaan barnaamijyada noogu soo qora qaybta comments-ka fariimaha barnaamijka la garay oo share garay hadda subscribe ka helo YouTube Facebook na follow garay taan markale kulmayno asxaabay nabadgelyo